si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar janalkan. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo huwaaga tariniya hawsha malaweegeedhaylala hadaadida olodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysaa ila meeraysadii way soo dhammaanaysaa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani diiday orod ila meerayso si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar janalkan. nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu hore u goonee aqoonsigan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay wareer kalamaano waxaa la yidhi muraad gaara ruux lihi hadduu shida matoor dhiilo oo shacab dareen mooganaa qayla maqashiiyo oo garashadii maadda suna kaga madoobeeyo indhahana mariid kaga shubo maankii ka afduubo ummaddaa macquulka ah inuu marin habow siiyo mansabna uu ku helo way dhacdaa magacna yeeshaaye munaafaqadsa kuma waarayee maafiyuu noqone gudcur maaran rowlaha kollay maalin baaxigiiye asagoo habeenkoo mugdiya dhagar maleegaya mar unbaa wuxuu maaganaa lagu farmuuqaa mana jira dad wada mahsan oo la iska maalaayo bal maxaa mujtamaceena suray weligii mooryaanta aryaa waa maran tahayo mooryaan goormaa laga soo gudba mintidiin iyo niman madax qurtubanaa ka dambeeyey horta nimayo waxaa la yidhi soomaalidu waa tuuga mahurto wuxuu u taliyaana tuuga inay noqonayaan waa wax lagu arki jiray laakiin waxaa la ogaaday tuugadu inay kala dhaqan roon tahay waxaa la ogaaday tuugga daljooggaah wuxuu dadka ka xado dalkuu guryo uga dhistaa oo kula noolaadaa laakiin tuugga dibadjooggaah akoon dibadda oo ku shubanayaa dhaqaalihii dalka hadduu dalkoo dhan xadana shilinkiisa cid arkaysa ma jirto warnamiyow lamboqore oo hadda ka hor umuduusantalyaay ma kasii hantida ka dhece guryaalka ka dhece beerasho waa dhece owlaadiyo waa dhece boqorkaasna gabar walaalis oo ku wardheegayo walaagay andirtoona qaada walaagay kareebto ma jirti dadkii us hantida ka dhacay antiya hoomeen walaalis an kooyen ma yareen walaalay boqorkii adkiila dhaladiya eberno dhiki hantidaan iyo owlaadaan iyo beerogaan iyo badkaan ebera kasii noo la hadala areen yooga barti surinyima boqorkii oo ferisa saaran meelikooy ma yartay boqor yaa uu sug feriskana ka dag hadagi gabartii ma yartay lima kama yari isku baa yartay feris iyo koray bahi dadkii ma yareen had walaalay lanku hakiinka oo aadniba may gartaan ninka nagu wayti lima la yartay kama lay garay warse waran wada limaadaas iyo kamaadaas doogolong ninka dhamaadi yartay may dadku sidan ka fali yari usina ma yaree walaagyo iska falaayeen leeyeen ka fali yari marka Soomaali hadii iyo eeyin walaagyo iska falaayeen lambon kooy ka falay shibku ara warmaday waxaanad ka tarorogsiinaysan waxba ka fahimaaye waxaan anigu dhihi lahaa qurba joogintu talinaya saaran yahay taashku xilka qaranku yaa tuuga iyo ay tolla ay joogto oo aan tacliin cidi tixgelin taqaquskii haysta tabaaluhu inuu inaga baxataa eegina wartan aad sheegday oo afaribil ka dareeyay waa ma garanay maynin lata warnima hadda koor walaalkiisa tuuga looga soo dacwooday markaas wuxuu yiri anigu kaayar waa cisay awlada caana sii jirtay
aryaadhaha haddaan ka horaa nin odaya loo dayrsho waxaana la yidhi how iska taag waa kugu tufne hanoo taaliyo tuukaale iska taag waa kugu tufne hanoo taaliyo tuukaale eebagowaana laga shallaayay war alaa kulli haale inkastoo tuug meelba ku kooyan faylahayna shal doranyiinga latina war waxaa kaloo la yidhi inkastoo ikhyaar loo yiqiin samir iyo iimaan leh ayaantan ardaal buu noqdaa kii arrimiya wararada soomaalidu waxay u tiri nin xil qaaday eed qaadye hoy hoy nin xil qaaday eed qaad inkastooy tahay haddana waxaa lagu diray hees oran cidii kuma arkayse afka buuxso allaahu akbar waxaa kaloo lagu dara cabdillow hays oran cidi kuma arkayse aqalla jeexo war waxaa kalood ka tagteen hays oran cidi kuma arkayse ina adeerso warna miyawti inka doranaytee ku tabteena shibnoore waana noo dhegansada hays oran cidi kuma arkayse qalinku aarso warnimayo allah u naxariistay abwaan subkana hadda ka horgebiyey war subkanagaada sheegaas dhaaysin ilikuwade warmadayo xushood dhays laguma sheegina waa dhaashanee war wuxuu yidhi xukun dabacsan xeer lagu tuntiyo nabad xannaan weydey xaqiiq laga fogaadiyo runtoon xaabka laga qaadin xaqiraadda iyo beenta iyo xuman la taageero nasab waa ka xaaraan biddaan xanu ka dheeraane xaashaa lilee waa wax gobi ka xarragootaaye xamar waa la kala leeyahaye xaqa dad yow sheega haanabe hangoolow xamar waa la kala leeyahe xaqa dad yow sheege war uniin weela doogna maaha mar inoo noo huleeli aman dheera garuunki langaaday ma anino shalay leeha bilaawtiya ka aalay war yareen walla weyntii baryahan way isku waalato xamar bay bilaabeene talow xaggaan u kacnaa war horta soomaalida wax badan baa ka qaldan xamar haddii qolo tidhaa annagaa leh micnaheedu in caasimad loo diiday oo dad laga rarayo maaha midda kale adduunka caasimad aan dad lahayn oon deegaan u ahayn kama jirto marka adduunka iyadoo caasimadda qolo leedahay deegaan ahaan ayaa haddana caasumad ahaan u shaqaysaayoo lagu wada nool yahay marka hadda ka hor maraykanku markay caasimadda isku qabsadeen george washington waa kii iibiye meeshii caasimadda noqon lahayd haddana waa ta loogu magac daray caasimadda maraykanka oo washington baa la yidhaah marka soomaalidu ama ha ku heshiiso caasimadda ama madaxweynuhu magaalaha u gabo hayehe aasaa farmaajo loo bixiha warna miya horta mayliyaabsana udurka muqdisho jileedii caasimada ka koobay mayat baydhawjanaya wiinto hargeysi wiinto gaalkaya wiinto kismaayi wiinto may wareejiyo bahale mal wareejiyo maybana ninka u gobsaduna warwar ma haysaane wasiirka warfaafinta ee puntland wuxuu yidhi telefishinka puntland shacabku waxba kuma laha waxna kuma darsan kamana hadli karaan dowladda puntland ayaa iskale waxay rabtaynu ku sheegi kartaa oo wasiirku miyuu ilaaway in telefishinka lagu soo iibiyey cashuurta dadka shacabka laga ururiyo haddana uu ku shaqeeyo wasiirku waxba ma fogayne dowladnimada dhan oo shaqaynaysa iyo warbaahinta maamuladoo dhan baa sidaa tiifiga qarankaba shacabku aragti kuma leh war tiifiga galmudug xaaf kama dambayn hawadoo ka maqaya isagana war tiifiga qaranka somalilanba waxaan muuse bixi raalli ka ahayn lagama sii daayo gaboosow qaranka somalilan oo aad sheegayso aananba isku raacsanayn war maareeyaha telefishinka hirshabeelle ee sanad ku dhow magacaaban muxuu qabtaa telefishinka hirshabeelle u soo socduu maaraynaya muxuu qabtaa waa max war mayba ka aalay malay badka jiro doogno usunan haysina hawaajin tumudohay war tiifiga koonfur galbeed ma iyo maxaa tirib waa isku daraa waraadihii baraawe af barawaaniga ku hadlaayey sidii loo xidhay ma la sii daayey war lahjada barawaanigu mase waa xilba mase waa soomaali yahu baraawe aryaa intay ku taal soomaaliya mase kenya warwar ma haysiine caasimaddii jabuuti maanta bannaanbaxaa ka socdaa la yidhi ismaaciil cumar geelle looga soo hor jeedo fariid ma amerikaankii ay ku daydeen war shacabka reer jabuuti intii hata guryaajo on isku burburiina walaa iyo hayan dhibaatadii nooradii ma fiirsadaana war ninka gaadiid xun haystaay ilaa uu gaadiid ka wanaagsan kiisa helaya inuu iska beddelo maaha dadka reer jabuuti markaa waxaan leeyahay annagaa dawlad la'aan xumaanteeda soo aragnee iska daysta ismaaciil cumar geellihiinna ismaaciil cumar geelle ammaanu uma dhimana madaxnimana uma dhimanee warka naga dhegaysta askari baylooda ha la xidhaa la yidhi kadibna xabsiga dhexdiisu filin isaga soo duubaa la yidhi wuxuuna sheegay inuu xaqdarro ku xidhan yahay kadibna xaaskiisiyaa layf soo gashay waxayna tiri
shacabkii dalkaygow shacabka jabuutiyow gardarrada nala ku haya waa arkaysiin kadibna reer jabuuti xaafadii waa ka soo wada baxeen oo bannaankay soo dhoobteenaa layidhi warnimayahow isku duuban weeyaan bulshadu waa uliyo diire waxay ku heesaanba maanta jabuuti ma bannaanbax baa ka socda naga tag wax ma ogida bannaanbaxa naftiisa isku duubniyahe war shirkii xalay magaalada lagu qabto oo maqaamka muqdisho looga hadlaayay oo xildhibaanadu iyo wasiiradu ka qayb galeen maxaa ka soo baxay mase shib ayuu ku dhammaaday eelka kii dhigay u dacwootooy miya war shirkaas oo kale markii la gobado jenaraal aydiid may baari jiray ilma adeeryaalow dhinacaha naga fiiriya turubkana bigaha laga saaro marka may baan maleeyay turubka biga maka saarna reeguun aryaadhaha waxaan maqli jira yaa loo dacwoodaa yaase laga dacwoodaa dawlad kale ma joogtee war xalal dood looga hadlaya doorashada ayaa dhacday madasha muqdishoana qabato oo tahliil shaatax uu hogaaminayo shirwac oo ka hadlana wuxuu yidhi ma filaya xilliga la sheegay in doorasha ku dhacayso warnimayahow war degdego hadda soo dhacaan idiin hayaa ha iga dhegaysta waxaa si inkaaran isu soo taraya warar inkaaran oo laga helaya deegaanka inkaar qabe oo dhacaduleedka magaalada inkaar warar inkaaran oo hordhaah ayaa tibaaxaya in dad si inkaaran isugu laynayaan deegaanka goobjooge qaab inkaaran uga soo xog warramaya deegaanka oo qadka iskaybka ugu warramay weriyaha sida inkaaran uga howlgala idaacadda ayaa sheegay in dhegihiisu si inkaaran u maqlayaan dhawaqa xabadda iyo dhinacyada inkaaran ay isugu ridayaan sida inkaaran ma jirto weli waanwaan ay wadaan dadka sida inkaaran loogu kor dagaalamayo taasoo lagu qaboojinaya dagaalka sida inkaaran u socda wixii warar inkaaran ah ee walaalyaal ku soo kordha wararkan inkaaran goordhow ayaan si inkaaran idinkugu soo gudbin doonaa war wararka inkaaran ood sheegaysaan ma bannaanbaxyada inkaaraayo cadaalad xumada inkaaran looga cabanayo maraykanka ka dhacayayba aryaa bannaanbaxyada inkaaranood sheegayso madaxweynihii inkaaray wallee cara xumo inkaaran kama qaadin edaankii ankaaran ayay midowga ankaaran ay ankaarti ka diliya weliba ankaartis aba sidee soote war ummad inkaaran wax inkaaran ma weydee dadkaa inkaaran intaa warkooda inkaaran naga daysiin si inkaaran aan u sheekaysanno warnimayo war kaloo inkaaran baa soo kordhay xogta inkaaran waxay sheegaysaa in wasaaradda caafimaadka maraykanka ay si inkaaran u shaacisay in ninkii sida inkaaran loo dilay ee george floyd uu si inkaaran u qabay covid-19 war booliiskii inkaaraamiyo beentaas inkaaran ugu cudurdaarayaan lankisda ankaaran len dilay ankaarti maraykanka kadhiidiya covid-19 ka ankaaray aryaadhaha wax inkaaranay dhalaane haddaadnaan inkaarayna si inkaaran noo kala kaxeeya waryaada gaboose hadduusan inkaarayn muxuu sidii qof inkaaran ugu soo kududaa halkaa ankaarlankii dhaganso ankaaran dad ankaaran hangmay walnan ankaartan isan warraa baarlamaanka waa ti si inkaaran dib loogu dhigay goormaa la furaya inkaarta doorashada ay bilaabanaysaa war baarlamaanku ma inkaarnee dadka u matalaaba inkaarane meesha inagu kala kaxeeya adeer aabba waa xanuunsan yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabbe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku idhi allaha u naxariistaan anna ku yidhi maxaa ka wadaa dhakhtar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha haa ee haddana faylka dheer loo gelayey sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan kumbiyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayey sow maaha alla ilaaha ee markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaalisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabanahaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajanibta noo yimid iyagaa keenayo waa isku mid ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaasaan ku soo koobaya yaana sii badinaan ma dheheen war hayga dhex gelin warkii cabdiduux yuusuf gabay ayuu tiriyey wuxuuna yidhaahday inta jidadku xidhan yihiin ummadduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan huuse soconaya meel xunun buuna aadaya warkaan aniga cabdulla xalay tirinabaa ka weyn jidadkaad la xiri maayo tiri waagii lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa ayaanan sii badin war inkaarta naga daaye waddankiina u adeega war doodii sidii inkaaran doorashada looga doodaayey inkaarta xaggee ku dambaysay nagatada inkaaru idinkuma dhacde madaxa
مدح كقبل نك ورنك مدح عبد الله نك مدح كقبل warkadaaya duumahaydan waafaqdeen diiday orod ila meerayso tawa muusow kow adi bahas sababtoo isa qofood meeli fadhiida laan shireeda fadhiida wariya naga taqanda neef weyn adiguna faraha iska soo dhaq adiga laftaada faraha iska soo dhaq iyana fogow wariya hal mitir ayayso ka mari wariya jooji wariya daawade si aanad noola meeraysan sabskraibde sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan laygta ha nagala masuugin